Professor Daruman arrimaha gobolka toddobaadkii soo dhaafay Eritrea booqasho ku tagtay safarkaaga muxuu ku saabsanaa? Generally waxaan fiirinayay inaan ogaadaan rabay integration-kan ay ku baaqayaan Ethiopia, Somalia iyo Ethiopia, how viable it is. 150 milyan oo qof meena gobol ku nool macna Djibouti marka lagu daro ilaa Sudan inay sameeyaan block yani economic yani sida East African community oo kale ay sameeyaan, how viable it is. I'm a Pan-Africanist. I don't believe borders between the communities. Borders kan waxaa keenay gumeystiyaa keenay. waxaan aaminsan ninka Maxaarada inuu ku noolaan karo Nairobi, waxaan aaminsan ninka Soomaaliga inuu Nairobi ku noolaan karo, waxaan aaminsan ninka Tanzaniyaanka inuu ku noolaan karo, waxaan aaminsan xataa aniga inaan ka istaagi karo Nigeria, aan ka istaagi karo Barbados, istaagi karo aaminsan aniga. So I don't believe what they call borders between the societies. I'm a Pan-Africanist. So waxaan fiirinaya how viable it is. So that's why in fact I was just looking the pros and cons of the matter. And ما نقول دون waxaan rabaa inaan ka qoro yani at least yani inaan buuq ka qoran rabaa how viable it is. gobolkan waa gobol macnaha waxa weeye ay dagaalo badan hareeyeen weeyaan oo xooti badan u hareeyay. marka waxaan ku fikiray gobolkan inuu nabad noqdo oo gobolka uu nabadoobo ayaan ku aad ugu fikirayaa. ma raba markaa gobolka inuu gobol lagu yaqaano in yani dagaalo badan ay horiyaan mar kasta oo xooti badan uu leeyahay, negative publicity kan faraha badan in yarayno oo macnaha economic ahaan ninka Kenyaanka oo Addis Ababa tagi karo يعني بعشر وادي كره ganacsi وادي كره xamar oo tagi kara ganacsi وادي كره dadku macnaha waxa barrier ka dhaxyar in laga qaadan rabaa. ninka yani مثلا يعني ribaadiyaha ay ku nool macnaha Garissa ku nool ama ku nool Wajir ama ku nool macnaha yani Mandera inuu markii roob u daa dhinaca kale u gudbi karo oo visa la weydiineen. kuwa ribaadiyaha ayaan markii soo gudbaan ayaan visa la weydiineen oo macnaha ay daaqooda macnaha markii roob ka daa ay xagga kan daaqsusu doontaan. marka generally it was just looking at the integration, economic integration part of it. isdhexgalka wadamada Afrika, geeska Afrika. marka maxaad soo aragtay? wallahi wadan aad u fiican weey runtii, to be honest with you. wadankan Eritrea yani waxyaabo yaab kale aan waxa kamid ah mataqaana aad iga yaabiyay. madaxweynaha wuxuu ku leeyahay simple life ku noolyahay, nolol iska raqiis ku leeyahay. wasiirka wuxuu wataa yani gaarigiisu wataa يعني ما لها درايفر ما لها بوديغارد من دبا socdo. maqaayadaha caadiga ku kulmaysa wasiirka. marka waxa la arinta la yaab arintaas weeyaan wadankaas waxyaaba aan aad ula dhacay waxa kamid ah مثلا waxbarashada from primary ila university waa free, ila masters program free, caafimaadku waa free, any hospital ay soo laga daweynaya. lacagtooda waa strongest in the region. halkii dollar waa 15 lacagtooda. qofka markuu 25 sano gaaro waxa la siinaa guri baa la siinaa, dawladdu guri bay u dhisaysaa. haddii marka housing iyo education iyo health laga qabtay yani waxa qofkii waa nool yahay. dadka badanaa yani nolosha raadinayo oo dibadaha aadayo dad greedy iska hayo weeyaan oo kale xoolo badan sameeyay weeyaan. waxyaabo kale waxa kamid ah xagga beeraha technology ajiib lay sameeyeen. yani waxa weeyaan food security waxa weeyaan isku filnaadaan. wadankaas 2 milyan iyo 100 kun oo ekar ayaa arab laana oo wax ka bixi karaan. 500 kun ay abuureen. marka variety of crops ay leeyihiin oo macnaha variety of vegetables ay ka abuurteen. waa dad ay isku tashtay. yani waxa weeyaan World Bank deenku malaha, IMF deenku malaha, dam bay abuureen aad u weyn macnaha bixireen oo local engineers ay sameeyeen. gawaarida luxury-ga ah badana canshuur dhafay saarayaan. laakiin hadda tractor la soo degtid waa free, hadda warshad la soo degtid waa free. يعني wadanka waa wadan macnaha waxa weeyaan abnigiisu aad u fiican yahay. 3 o'clock and 3 am waa socon karaysaa. marka waxyaabaha marka western propaganda ay noogu sheegi jireen negative publicity-ga inay beentan soo ogaaday. laakiin professor kama hadleen arrimaha dimuqraadiyadda, mucaarad kama jiro, warbaahin madax banaan ma lahan, dhinacaasi ka waran? walaal fiiri, hal shay Afrika konton iyo 4 dawladood weeyaan. marka laga reebo Botswana iyo Ghana iyo wadanka la South Africa
inta kale democracy maba ka jiraba su-aasha markaa dadka hadda wax bartay isweydiina waxay tahay ma good governance aan u baahana mise democracy aan u baahana you have to differentiate the two waxaa u baahana good governance mise democracy aan u baahana xagga good governance ka jira madaxweynaha waa faqri waa waxba haysta buriyo dowladda dhisto ku jira hadduu dhinta maanta ilmihiis waxba kama dhaxlayaan hal shay maanta ma laha laakiin madaxweynahan waa taajir sama madaxweyne soo taajir ma madaxweyne kamid yahay dalka madaxweyne muxuu kamid yahay afarta qof ugu taajirsan dalka filan ku jira ninkaas wuxuu ku jira dadka ugu fakrisan ku jira waxba ma haystaba hadduu dhinto macnaha waxa weeyaan hadduu dhinto hal guri oo macnaha mashaakis ku dhisaa laga dhaxlaa wax kale ma haysta I can show you kuna may kaade ninkaas waa iska lugeynaa magaalada asman iska dhex lugeynaa wax waardiyana xataa ma laha inuu qofka markuu tuug yahay oo wax dhaca ayaa la waardiyay sama ilaa qofka soo muusantay qofka waxba dhicin ka war waxba dhicin ba waxba ma haysta maxaad ka dhexad hadda dala ma ka dhexay waxba haysta yani mushaarka ugu badan uu qaatay waa 6 kun waay 6 kun wuxuu qaataa kii kale oo macnaha naqbal la lacagtooda 6 kun qaataa professors ka lacag badan 8 kun qaataa professors university ka lacag badan laakiin hadda shil ma haystaba laakiin hadda fikirkaaga hadda si xuriyada u cabiri kara dibkeeda leedahay Soomaa walaal fiiri hal shay aan ku sheegay problemka anaga na haysta Kenya haysta waxa weeyaan everybody is a politician politics ka hadlaya leave the politics to the politicians habarta يعني جلسة فندس كجلسة وحكالسة ما أنت وحكالسة كلونسي وحكالسة ريلا وحكالسة يوري كالسة كان معنا يعني شو شيء ناس وحسوك هذا يا هذا تك مجال حقل كان شوب كيف حسوك هذا يا ور ماشي أنا وحرب نور برا نور هذيك هذا housing 25 years وكوين تقولين دولة تقولين كوسيس بس ينصو وحبرشة سؤال أجمع هالكن from private up to university سؤال أجمع waxaan ku weydiinayaa house muxuu ay sheegeen caafimaadka neerab hosta maanta tagto waxay maqa kaaga baxaysa waa free xag shilin bixinaysa so inaad dowladda caayb saarta nolosha caayb saa yani illa kritisasgay dowladda waqtigaa jirta taa kelima caaye no we have to think inaad ka fikirta loo baahan yahay the life of your own people inaad ka fikirta loo baahan yahay marka su-aashu waxay tahay bulshada marka maxay u fahmi laayihiin waa bulshada wadanka Eritrea loo jeeda oo ay uga calaacalaan madaxweynaha iyo dowladda let me tell you one thing adiga waxaad akhristaa western yani media ayaa ku fiid gareeya Africa warbaahin madax Bukhari listen adar macaan waxa weeyaan annaga inta badan maartay waxa weeyaan we can't even create our own narrative waa noola sameeyaa adar macaan annaga western wala noo sameeyo narrative noo sameeyo propaganda ayaa noo sameeyo macaan gaashidka aqsan ayaa sameeyo janalka TV ga fiirsan ayaa iskale marka waxa weeyaan ninkan waxay ku haystaan waxa weey dalkiisii waxa weey wuxuu ka dhigay independent kuma aha dependent western wal kuma aha intaasay ku haystaan waxay rabaan inay qeyratiis boobaan bay rabaan si hadda anaga noo boobayaan wuu diiday marka all sort of propaganda ku fureen وفن صبا waxba kama jiraan been waa ani markaan meesha tagayay fact find mission meesha waaday I have to see my own eyes waxa meesha ka socdo waxaan soo arkay iyo waxaan ka haystay waa two different issues waxba tan iskama gelin mid kale adiga good governance oo baanta democracy oo baanta let me ask you Africa content Africa dowladda democracy meesha ka jirta maxay tahay let me ask you one question wadanka Uganda doorasho ma ka dhacdaa hayde Uganda doorasho ma ka dhacdaa good madaxweyne Museveni ma qasna haystaa soo 36 ma haystaa war soo doornaa Soomaa kaadi doorasho maana la basta they not undermine your intelligence adar maan waxas doorasho lama adar waxas waa been waa kaday waxas hadduu doorasho tajadna kan meesha joogi la 36 sano idul fiiri Museveni wuxuu haystaa 36 sano haystaa oo ku jira barama oo ku jira madaxweynaha Paul Kagame 19 soo jooga Ismaaciil Cumar Geeto 22 years soo jooga 22 years makafuri intuusan doorasho ka dhicin waa ku shubtay waa boobay sax wadanka waa arkaysa doorasho waxa ka dhacday oo aan isku khilaafsan sameyn they don't have a moral authority to bridge a size of okay waa gartay madaxweynaha Afwerki waa la kulantay yes qof aqoonyahan magac bulshada ku leh oo ban Africanist waa tahay haddana madaxweynaha saan ognahay waa dad waaweyn
wasiiri iyo dad kale oo iyaga asaygooda la kulma marka inaad la kulanto maxaa ku saalay maya meesha qof kasta la kulmi karo xagga joogaba waa simple guyba anaga sunta mushkilad anaga haysto waxa weeyaan mushkilad anaga haystaan ku sheegaa hadda maanta u baadeen Uhuru Kenyatta madaxweynaha aan la kulmo process ay qaadanaysaa ay ka duqood lagdis haddaan wasiir la kulmaa waa inaa babnaka dalwada babna secretary la kulmaay muddo ay qaadanaysaa nin wasiiraan iska shaqeysanaynay madaxweynahan iyo markale kana ku geeno dheh waa simple wax way baahamba markaad kalantay maxaa ka wada hadashay wallahi 4 hours 3 hours ma san la fadhiyay geopolitics ku ifhamsiiyay 4 hours oo ninka aan la fadhiyay mala zina wuxuu yiri 1 hour if you spend 1 hour with Isaias is much more worth it than reading 10 books yiri hal saacado Isaias la fadhiisto yiri adoo 10 book akhriya ka fiican 10 book akhrisa 10 book la akhrisay halka saac Isaias ka fiican buda هذاك يسوي وقتي والله in 4 hours wuxuu fahamsiiyay geopolitics iyo socod the whole geopolitics iyo socod يعني ninkaas waa nin wadankiisii dadkiisii u tashaday weeyaan but fiiri other ninkan despite negative publicity laga faafiyay laakiin dadkiisa way jecel yihiin waa down to earth simple guy way down to earth يعني هبا يراتي accessibility كيسا واحد بدل ما بامبا هذيك أنا دوريها هذا أصبرت جديد أسمر هذا كدك تمانت وقت الحرب الساين الله الله والوجي نادر هذيك البخاري I can assure you وهكذا I can assure you that ده كان يتوبي أنا دانو ما نرد let me finish before you go there Dalkas from year 1 up to year 11 markaad gaartid يعني waxa weeyaan yaa 12 markii la gaaro hal magaalo isugu imaanayaan all the form 4 candidates hal magaalo wada imaanayaan magaaladaas waxa lagu galayaa examka lagu galaa magaalo ardayga ha ka imaado koonfur ha ka imaado waqooyi ha ka imaado bari ha ka imaado galbeed magaaladaas la isugu imaanaya magaaladaas form 4 ku galaya 4 sano dadkii marka waa isbaranay integration dhamarka integration dhacay integration markuu dhaca then 6 months waxa la siinaa marka military training la siinaya qofku waxa la baraa marka patriotism la baraa nationalism fiiri ninka ka imaaday Kakamega Wajir Turkana Mombasa Nairobi Migori hadii meel soo keenay ka waran soo kiiba oo marka integration u dhaca oo dalkooda la jeclaysiiyay ka waran patriotism ma shaka dhalinaysa dalkooda ay jeclaanayaan marka adeer waxa weeyaan ninkani waa nin dalkiisii iyo dadkiisii waxa weeyaan vision iyo mission la waay vision iyo mission u leeyahay laakiin problem kaysto waxa weeyaan western waa la isku taagay ayaga marka inta soo bixina wuxuu ku furaya propaganda ku furayaan narrative-ka afrikaanka waa loo abuuraa adeer anaga ma abuuranaba Eritrea wadan yar weeyaan oo runtii ayaga tashtay food security in a span of 5 years ku gaarayaan food security waxba ma bahnaba dependency ka baxan dependency ka baxan adeer madaxa hadda dhalashay jirto muddo badan xafiisyada ku jiray siyaasan kuwaas oo la mid yahay waxaan ku weydiiyey Bukhari Yoweri Museveni uma aragtid dictator inuu yahay uma aragtid ninka la sheegay bawlka gabon 19 years inuu dictator uu yahay وما أردت إسماعيل عمر قال له 20 years ما شرح فرينه دكتاتي هاي وهذا كان معك قوة له هاري بلاك قدر يسمع رسول أركتها تيدي هذا كم يمسن كون كلا حدوا أركتها هنا حي إن كان إنه في عياد ما كان ما أركيه كون كانوا حيهم كمان هي وحن هنا هيجا شخصي نادر لكن كواس هذه وما أركت دكتات نيهين لكن ما لو قدري كواس كمان هاللين سوما هذا فاين هذا كهاللين هدينا كهاللين كون كلا waxa weeyaan laakiin perception jira wuxuu yahay ninkan ayaa waxaan ugu diray western world ayaa ugu diray oo u tilmaamay inuu dictator yahay laakiin I don't think so ninkan kan dictator lama yahanba nin ku dhageysanaya dictator ma waana darmaan waa gartay anu mana ra'iisul wasaaraha Ethiopia isagana waa la kulantay saad kula kulanteen isagana aniga farax macalin oo nin caan oo la yaqaan oo debate speaker ahaan jiray ninkaan muddo badan ay shaqaaneen waa la kulannay waxaan kala hadlay kaliya gobolka si loo nabadayn lahaa
wuuna qaabilay fursad waan kula hadalna siiyey in dagaaladan faraha badan la joojiyo oo at least maartay yani waxa weeyaan la wada hadlo afrika dad waxa la adeer wax dhaban afrikaan weeyaan waxa islayn adeer afrikaan weeyaan waxa la dila afrikaan weeyaan in macna at least maartay wadanka gobolka la nabadeeyo oo macna waxa weeye nimanka dagaalamayana bal wada hadal ugu dayo oo la furo yani waxa weeye ayagana runtii ay iska dhaafaan macna waxa weeye waxa meesha soo proxy war weeyaan proxy war oo west iyo east meesha isku dagaalaya marka in proxy wargaas laga baxa oo marka si afrikaanimo ah oo macnaha walaalnimo ah yani loo wada hadla oo marka gobolka la nabadeeyo that's one of the issue aan kala hadalnay as a Africa waxaan bartaqaadkan wuxuu ka imaaday waxaan ugu martiqaaday yani all ban africanista meesha isugu imaanayay symposium ka socday speech baan ka jeediyey aad u fiicnaa marka speechkaas baan ka hadlay aniga oo ban africanista wuxuu martiqaaday ninka la hadlay Lumumba martiqaaday biyo Lumumba martiqaaday hadda koor baarlamaanka wadanka Ethiopia oo ka jeediyey macnaha ka jeediyey speech ka jeediyey waa the same waxaad ay ku kala duwan yihiin maanta ariga ma arkaadar macaan waa dad yani waxa weeyaan dadka afrikaanka oo la martiqaaday oo ka yimaada Mali ka yimaada Ghana ka yimaada Kenya baan ka aniga kamid ahayn waa gartay dhanka Soomaaliya hadii aan wax ka taabano muddo waxa jirtay dhowr toban maalmood gaaraya lagu afduubtay markoo dambana ilaahay fadligiisii dadkii ku afduubtay codowga aad ka soo badbaaday kadibna waxaad ku aayadeysay in ra'iisul wasaaraha ama Soomaaliya uu lacag ilaa 300 milyan uu ku bixiyay dilkaaga taa ilaa hadda waxaa la isweydiinaa xaqiijin sida ku xaqiijin karnaa walaal fiiri jariidada yiraahdo Standard ayaa qortay 2 page bay ku qortay waxay sameeyeen loo yaqaan investigative journalism ay sameeyeen waxay wareysteen dad meenaha yani oo saraakiila iyo dad meenaha Soomaali jooga inta way wareysteen waxay xaqiijiyeen markii aan ay wareysanayeen waxay soo qaateen dhamaan macna waxay soo qaateen ay sheegeen waxay soo aruusteen waxa la wixii ay sameeyeen investigation ila wadaageen laakiin copy ma aysiinin laakiin waxyaabo badan waan sameeyay aniftii waxaan sameeyay yani research dheer baan sameeyay ninkan waxaa si jirid waxay ku eedeysay in afduubkayga xafiiska prime minister laga soo abaabulay laba nin inaag joogo islii ee gabar Mareykan joogtana ay qayb ku lahaayeen qorshaha wuxuu ahaa aniga iyo Farax Macalin iyo ninka la xabnaas in la dilay waxay noo eedeynayeen oo runtii in anaga dadka mucaaradka ah aan inta badan macnaha aan dalino madaxweyne farmaajana inta badan aan gurum garayno ama aan la jirno wax noocaas ay noo eedeynayeen dowladda kale inay kula jiraan macquul waaye laakiin isaga xafiiskiisa laga soo abaabulay jiradda marka waxay leedahay habeenkii aan lii qabanayay waxaa lagu bixiyey $120,000 qabashadayda waxay ahayd marka in lacagta hartay oo $180,000 ah in markii aniga la dilo markii meesha xabsiga aan galo intaan la dilin ay bixiyaan marka lacagtii bay la daaheen tii marka waxaa la marka out kale dhacay marka wadan gudihiisa iyo dibadiisa pressure marka dhacay dartiis ayaa waxa weeyaan aniga la sii daayay dadka ay qabtay waxay ahaayeen dad macnaha waxa weeyaan oo tuugayeen dowladda Kenya hataa ma ogeyn gadaal bay ka ogaatay marka jiradda marka waxay ku eedeysay in nimankaas abaabulan oo macnaha laga soo abuuray hawsha laga soo abuuray xafiiska prime minister xajilooyin fara badan iyo wuxuu ahaa ay sheeg waxyaabo badan macnaha yani kaalmo badan oo jiray kullin waa soo aruuriyay marka book aan qoraya ayaan insha Allah taala ku soo bandhigi doonaa book hadda chapterka afraad aan hadda maraya ayaan ku soo bandhigi doonaa siday macnaha yani waxaan ku dhacday isay ku abaabulantay marka ma doonay hadii aan boogaygi halkan kuuga sharxa maalin kale waqti kale ka dhigi doonaa marka arrimahaas marka lagu wadaagay ama aad ogaatay dacwadii inaad saldhigyada booliska tagtay ma dacwad wax ma ka qortay ma aanan dacwoonin oo dowladda wali official dacwad ma aanan gudbinin laakiin wali investigationki intiisa badan waa soo dhameystiri rabaa wax ay dhiman laakiin waan ku dajira laakiin buugan waa inaan ku qoro waxaan rabaa inaan buug ku qoran rabaa hadafkaan leeyahay inaan qof dacweeyo hadda diyaar uma yihi laakiin waxaan rabaa inaan buug ku qoro
ummadda Soomaaliyeed marka ay fahanto wixii dhacay jiilasha soo marka ay akhristaan marka wixii dhacay taasan ultimate goal kan leekaas weeyaan Professor Abdiwahaab hadda ma soo aragtaa naftaada khatar inay ku jirto well I don't think so hadda dowladda Kenya runtii yani aad bay ii saacidaysay yani dowladda runtii waxaad moodaa maartay in hadda yani aysan ku deg yani amaankayga hadda inay si gooni muhiimad u siinayso marka uma malaynayo hadda inaan khatar weyn ku jiro ma filayo marka ma ilaaliyaa lagu siiyey siday dowladda amaankaaga ay u xaqiijinaysaa walahi hadda ilaaliya lama siinin laakiin waxaan isleeyahay maartay yani waan la hadlay ragga security ugu weyn wadanka waxay ii sheegeen in haba yaraatee adiga aan xagga dowladda aan laga haysanin way xaqiijiyeen taayide tuugida marka hore ku afduubatay lacagta loo balan qaadayna taa waxa weeye horta taasu tahay ummadda dhan bay lama tahay dadka hadda yani dadka la afduubay ma la dilay ma la kariisanayo wuxuu ilaahay qoran walaal nafta ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa shalay way qabteen ilaahayna way sii daayay haddana hadday wax dili karaan ama ayaga wax dili karaan ayaga ma caabudi lahaa ilaahay ma baana caabudeenba marka ilaahay baa nafteeda gacantiisa ku jirtaa